قال تعالى إلى رسولك النبي محمد وحو كسو دجيي واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين waxaad garabkaaga u raaricisaa oo u dhifrisaa oo u turtaa liman tabacaka min almu'miniin ummadda ku raacday oo mu'miniinta u raarici ummadda u raarici waqala ta'ala inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun aayadaasna waa aayad kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam Aisha ayaa waxay ka warisay waxa ka maqan rasuulka Ilaahay isagoo la fi beeytay hada gurigayga Allahumma Allah yow man waliya min amri ummati ummadayda amarkeeda qofkii waliya shay aan wax yarna oo fashaqa dhiba calayhim korkooda fashuq calayhi ilaahu dib riwaayad baa waxay qabtaa inuu jannada gelayn macooda mid kale waxay qabtaa inuu jannada naxariisteeda urinayn marka dadka maamulka haya ummadda waxa la rabaa inay u dhimriyaan nooc kasta ahaadeen ayaga ka mas'uula qof kasta oo wax gaaraan qaakhiro ayaga laga xisaabtamaya oo maaragtay inay ogaadaan maxaad u ogaan weydeen kaliya ayaa aakhiro lagu xisaabtamaya qofka dhibtu gaadhay qofka maaragtay nool oo hadlaya oo waxa dantiisa sheeganayana waa ka sii baabulawla kii dhintay mar hadii la weydiinayo kan nool inay dilaan ma ahan waa inay nooleeyaan waxa weeye inay nooleeyaan oo u digaan ummadda oo u naxariistaan oo maaragtay wax kasta oo maaragtay ummadda anfacaya inay maaragtay u sheegaan oo u soo hormariyaan wax kasta oo dhibayana ay dib uga dhibaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa mahad leh maanta oo ay taariikhdu tahay 31 bishii 10aad ee Oktoobar 2018 annagoo ah saraakiisha ciidamada qalabka sida ku cidda kasta oo danaynaysa jiritaanka dowladda Puntland iyo tan ummadda Soomaaliyeed ujeeddo tixraac bayaankii saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Puntland oo ku taariikhaysnaa 24 bishii 10aad 2018 waxaa jirta in bayaankii saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dowladda Puntland afkaartoodii ay dadka qaarba si ula muuqatay ma ahayn arrin meel kale ka timi iyo siyaasad dibadda ka ah Puntland ee waxay ahayd arrin ka dhalatay talo isweydaarsiga saraakiisha dhexdeeda kadib markay arkeen saraakiishu waqtigan xaadirka ah waxyaalo badan oo qaldan oo aan la arki jirin xilliga kala guurka inay ku soo kordhayso Puntland halkan waxaan ku cadaynaynaa kuna qeexaynaa in sargaalka sare uu yahay wakiilka dowladda iyo ilaaliyaha sharciga dalka u yaal wuxuuna xaq u leeyahay inuu ka digo khatar kasta oo ku soo fool leh dalka sidoo kale wuxuu ka hadli karaa qaladaadka dowladda xilliga ay ku habboon tahay Cabdiwali Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland wuxuu soo saaray habeenkii ay taariikhdu ahayd 27 Oktoobar 2018 waraaq uu leeyahay waxaan ku ruqseeyay 8 sargaal oo ciidamada qalabka sida ah waxaan leenahay warqadaasu ma waafaqsana wax sharci ah ruqsaduna saraakiishuna sida uu u fududaystay Cabdiwali uma fududa ee waa wax aan fududay taasna waa mid khibradiisa maamul iyo tan dawlad aqoontiisa heerka ay taagan tahay u tilmaamaysa cid kasta oo sharciga taqaan Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed saraakiishu haday ka hortimaado ama waa toogan jir ama waa xirxiri jir laakiin ma aanan maqal waxbuu ruqsay tusaalana waxa idii ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa la oran jiray markii uu kulmisaystay oo dawladda lidka ku ahaa korneylada ma ruqsay xuquuqdii baa laga jaray mushaharkii wixii lamid
gebagebo talo bixin waxaan talo bixin siinaynaa kursigu waa meerto nin kasta oo sharciga yaqaana hankiisuna siyaasadeedna fog yahay wuxuu garan karaa sharaftii loogu dhiibay kursiga sidii caadadu ahaydna waxaa maanta looga baahan yahay madaxweynayaasha wakhtigoodu tegey gogol xaar doorasho deganaan iyo iimaan waxaa la rabaa shacabka inayan ku galgalan sidoo kale waxaan u sheegaynaa bayaankayagii intaanan ku khatimaynaa waxaanu maxkamadda iyo dacwo lidku ah cabdiweli maxamed cali gaas u sheegaynaa ummadda waxgaranaysa iyo dadka u dhibriya ummadda ku xeer ilaaliyaha guud ee dowladda qaranka Soomaaliya og madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya og ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya og wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya og aqalka sare ee Soomaaliya og madaxweynaha dowladda Puntland og maxkamadda sare ee dowladda Puntland waxaanu dacwad ka soo qoraynaa oo u soo qoraynaa meelaha aan tilmaamay dacwad lidku ah madaxweynaha cabdiweli maxamed cali gaas taasoo aan ku tilmaamayno dulmiyadii uu ka galay dalka iyo xuquuqdayadii oo uu ku tintay ama ha noqoto mid ciidan ama ha noqoto mid shacab السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka ugu horeysa waxaan salaamayaa saxaafadda saraakiisha meeshaan joogta ee shacabka ka soo qayb galay muxuu haytay in allaaleynta meesha isugu timi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu maanta halkaan isugu nimi hadal suuqa galay oo ah saraakiil raadinaysa xuquuqdeeda oo waddanka u dhalatay oo aan marti u ahayn markay hadleen xuquuqdooda ka hadleen in madaxweynuhu ugu jawaabay waan idin ruqseeyey waxay noqotay annagoo ah saraakiisha aan ku jirin saraakiisha la ruqseeyey waxaanu qaadan kari weynay waxaanu u qaadan kari weynay qofku hadduu xuquuqdiisa doono haddee waa qof xuquuq u leeyahay doonaya horena waa loo dooni jiray xuquuqdaasoo waxaa markhaanti idinka in loo dooni jiray sarreeye guuto dayr xaaji cabdi waraaqihii uu u geeyey baarlamaanka isagoo xuquuqdaa ka hadlaaya maahmaahdii uu ka tegey markay u jawaabi waayeen uu ugu maahmaayay islaan reera lisin ka soo qaadatay oo islaantii intay lisinkii ka daba timi reerkii hilibka qalanayay caawadan markay derbiga fadhiday oo hadhow ay aragtay weelkii iyo reerkii oo kala seexanayo la dhaqay ay islaantii tiri warisiya lisinkayga aan dhaxanta ka xiraystee dee lisin ma dhaxamoodo laakiin islaantu ciyigii bay weyday dayr xaaji cabdi baarlamaanka wuxuu ugu maahmaahay isiiya waraaqahaygaan dhaxanta ka xiraystee waxay noqotay maahmaah dhaxalgala oo taariikhda geli doonta bay noqotay yaan loo qaadan marka saraakiishu ama ciidanku inuu xuquuqdiisii ka haree kama hari doonno kana hari mayno midka la leeyahay waa la ruqseeyey iyo kanaan la ruqsayn iyo ka naga maqan iyo mid gobol jooga waa isku mid waa isku xuquuq waana raadinaysaa waana isku mabda waxaan leeyahay marka madaxweynaha iyo inta la fekera horta waxaad aqoonsataan sarkaalku wuxuu yahay horta aqoonsada ma taqaaniin aqoon uma lihidine horta aqoonsada sarkaalku waxaa weeye markuu gaaro ofishaal superiore midka xaq u leh inuu baarlamaanka fadhiisto aan laga celin karin xaq buu u leeyahay inkastuusan cod ku lahayn haddana xaq buu u leeyahay siyaasaddu galay inuu fadhiisto kursiga oo dhegaysta ka noqdo taas waxay ku tusaysaa inuu waddanka taladiisa wax ku leeyahay sarkaalka ama ciidamadu waxaa weeye dadka u dhinta waddanka dadka u dhaawacma dadka u gaajooda dadka buuraha saaran dadka haddeer difaacyada ugu jira dadka u gaajooda u haraada dadka haddana waxaa weeye ilmahoodii ay yihiin baalashlayaasha xaqiiqiyan markaan ka hadlo carruurta la yidhaahdo baalash la weeyo kabaha iyo baalashta waa saraakiisha iyo ciidamada dhashoodii weeye
waxbarashadii bay waayeen sarkaalku waxbarasho xaq u leeyahay koorso xaq u leeyahay daryeel buu xaq u leeyahay waxaasoo dhan waa waayey ilmaha iyagii baa baalash la noqday waxaan marka madaxda Puntland u sheegaya waxaanu idan dooranay xilli baanu idan dooranay dastuurka ogolaa doorashaad ku guulaysateen maanta waxay taagan tahay gabagabadii xilligii la idan doortay bay taagan tahay waxaanu idan ka codsanaynaa ummadda u baneeya oo isbeddelka raalli ku noqda oo waxyaabaha haddeer finfinaasaya oo aanu aragno waxaanu u aragnaa waddanka in la gelinayo qas iyo lab ha laga daayo waddanka waxa weeye marti kuma ahin inaanu ka hadallo wixii dhiba ka hortagno xaq baanu u leenahay mana dhacayso in dhibaato la geliyo diyaar baanu nahay inaanu ka hortagno wax kasta oo dhibaya inaanu ka hortagno waxaan kale oo sheegayaa waxaan hadalkayga kaga baxayaa bayaanka saraakiishu soo qortay dawladdu ha u dhaga nuglaato dawladda sare ee federaalka Soomaaliya markuu gaaro codka iyagu ha u dhaga nuglaato oo arrintaa ha soo farageliso xoogga dalka Soomaaliyeed ha u dhaga nuglaadeen waa saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed waxa meesha ka hadlaya iyo codkii xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan hadalkayga kaga baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaa ku dhan ama ku eg aragtidii saraakiisha ciidanka Puntland bayaankaas ayuu ku xusan yahay ama ku salaysan yahay la akhriyay haddaan ku daro in yar oo faalla bixina cabdiweli cali gaas wuxuu yidhi saraakiishaasi waa ruqso isagoo aan xubno iyo magac toona u tilmaamin sharafta waxaan u sheegaynaa saraakiishu cabdiweli ma aha sidaa aad u qaadatay afna lagama ruqsay maxkamad iyo kiisay galeen baa lagu ruqsayn karaa artiikul loo cuskaday baa lagu ruqsayn karaa iyadoo ruqsadaasi weliba darajada ay sitaan ee ku xusan ayaan iyadu dhicin oo dhammaan oo dhiman ee weligeeday taagan tahay haddaad u qaadatay wax fudud waxaan u arkaynaa halkaa nin sharciga u bisil iyo mas-uuliyadda loo qeexay ama loo dhiibay inaadan ahayn sabab wax afka lagama sheegee artiikul iyo sharci iyo dukumenti baa lagu soo saaraa tan kale haddaa mooday sarkaalku ama saraakiishu dalka inayan afkaar ku lahayn inayan aragti ku lahayn inayan ujeeddo kaga hadli karin wixii xun iyo wixii sanba waxaanu ku sheegaynaa waajibaadkan xilliga kan iyo xilli kaleba saraakiishu iyadana waajibaadka dalka mid difaac hadday tahay mid afkaareed hadday tahay iyo mid ujeeddo hadday tahay waxaanuse kuu caddaynaynaa ama ku weydiinaynaa maalintaa doorashada ololaha doorashada aad ku jirtay oo adoo mudug ka soo ambabaxay ciidanka maamulkii hore uu kaa horkeenay 140 nin oo hubaysan ayna kugu celiyeen kontaroolkii birta dheer saraakiishii kaa soo kaxaysa annaga awood kuma aad soo jeerin xiniya kuma soo jeerin xeegaan kale kuma soo jeerin kuwii gacanta kaa soo qabtay ciidankiina kaa hor wareejiyey annaga ayay ahayd inaad marka maanta gaf iyo waxayan kaa mudayn sharafta saraakiisha aad ku dhaawacdid ma ayanaa cabdiweli aqoon baa kuugu dhiman haddii nin caruur primary school jeesa u dhigi jiray baa tahay marka sharcigii inaadan waxba ka aqoon baa halkaa ka caddaanaysa waxaanuse kuu caddaynaynaa tan Puntland iyo Soomaaliya tay doontaba ha ahaatee dalka inaanan nin marti ugu ahayn cid marti noogu ah ma ahayn ninna inaanan marti iyo magan mid noogu ahayn wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga kaliya aragtiyaatan ma arag waxaa la yidhi dhegalaa baa waxaa la yidhi war hebelow adigu waa dhegala reesay wax maqashaa hadduu hadaad gar daran tahay oo dadka isqabataan see wax u maqashaa baa waa gar daran tahay see wax u maqashaa wuxuu yidhi ummadoo dhan bay dhugataa inaan gar darahay ugalaha fiiriyaa haddii ummadoo dhan dhugato waxaan qaataa inaan gar darahay baan ogaadaa
haatan waa ogtihiin afarta maamul goboleed madaxweyne oo meesha jooga kulli ummadda baa fiirisay waris qaata ummaddeeda fiirisay ma dhagolkaad ka leeyataan idinku madaxweyne baa tasoo madaxweyne ma ahayn waa nin dhagala waa wax maqal idinku waxbaa maqashaan waxbaad aragtaan mas-uuliyiin baa tihiin war ummaddu inay aragtay fiiriya oo arka oo ummadda raac waxaan idin leeyahay marka wax yar baa idin haray ummadda raaca laydin doona lama yaqaan laydin doona lama yaqaan ummadda waxaa laale waxay ummaddu rabto raba idinku baan idin leeyahay waxaa kaloo idin leeyahay waxa cudurka anaga la gelisay beelaha sidaas loo xasuuqayo waa la tixgelin oo la dhuwan xildhibaanada la soo dooranayo xilma waa idin jeednaa waa idin aragnaa annagu haddaan saraakiin lahay maxaanu amar ku qaadanaa cadowga arag fiiri yuu ku dilin yuu ku qaban baan ku qaadanaa amarka adigu intuusa ku dilin dil baan amar ku qaadanaa waxaan leenahay baasaboor Soomaaliya nista marka lama dooran karo hadda la sheegna qolada kariyo waxaan idin leeyahay taasaan ku soo gabagabeynaya hadalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim waxaan doonayaa saddex eray oo kooban inaan ka hadlo mid cabdiweli buu ku salaysay madaxweynaha Puntland buu ku salaysay ma deynayo taasi waxay tahay oo aan caddaynaya cabdiweli inuu diiday dhaawacii uu sheeganayay meelaha ay deegaanka ku leeyeen uu xukumo in uu diiday diyaaraddii daawada siday inuu diiday dhaawacii in la qaado la raro inuu u guntaday suldaan garaasi shaarka u dhigtay airportka dhexdiisa diyaaraddina ay sidaa ku fadhiistay kuna qaaday waa caddaan Puntlandna waa ogtahay shacabkuna og yahay ciidamada qalabka sidaana waa ogyihiin dawladdu soo dirtayna waa ogtahay taasi waa mid allana waa badaalacanayo uu jeeday cali khaliif waxaan ka maqli jiray cabdiweli wuu sheegtay wuxuu dastuurkay ku yaalleen sool iyo sanaag maantay noo caddaatay inay dastuurka ugu yaalaan uu ka milicsado aysan ahayn meel uu xukumo taasi caddaan markhaati madoona weeye sida odaygii hore u sheegay ama korneylku uu caddeeyey 60 kilomitir bay u jirtaa meesha la isku gumaaday ciidan cod dhaqaale midna kagama qayb gelin taas dee diyaaraddaaba ka markhaatiya siduu u diiday taasi waa intaa cabdiweli xaggiisaan ku dhaafay mid kale waxaan u sheegayaa odayadii xarfaanta ee halka ku shiray ee kala haystay Kismaayo bay iyo Bokool iyo madaxweynaha xilkiisaba waayay midka kale laga daba doortay ee ciidamada samaystay inqilaabka dadban ee ay abaabulayaan war waxa la isweydiinayaa shacabka aan weydiinayna ciidamada yaale ciidamada la qoranayo yaale Puntland male kunka cabdiweli sheegay ma aha reer Puntland dawladda federaalkiina male waa al-shabaab baan filayaa iyo meelayoga kale yaal daacish iyo wax la mid taa kadib waxaan leeyahay reer Baydhabo xildhibaan nin sheeganaya habeen dawlad hadlo wuxuu yiri waxa laga dawladda federaalka waxa ka horkaantay maamul goboleedka Puntland saraakiil inay hadasho buu hadlaysay waa maqlayo laga horkaanay nalaga horkeenaade adiga khaldan waxna waadan ka ogeyn dalkan wixii loo soo maray waxaan leenahay xildhibaanka xamar joogow ma ogid Baydhabo tii laga soo maray baadan garanay Baydhabo tii laga soo maray baad moogta waxaan ma waxaad ay diaspora Baydhabo waxay mudatay xilligii kala guurka isqaashada ahay mawduuc waxa ay soo martay hooyada baadan garanay waan ku leenahay adigu ciidamada qalabka sidii halka ku sugan waxaan leenahay war waxa lagu gorgortamaya waa idinka waa dhiigiina waa naftiina meel kasta joogan ciidamada qalabka sida inay ka qabtaan daalimiinta budcada hadda suuqay dalka iyo dadka oo raba inay ugu celiyaan 30 sano waxay soo martay man yeelayno annagu haddana saraakiisha Puntland ma aqbali doono mana yeelayno waa macal salaama waana idin salaamaya dadweynaha